dumarow raggu muuqu ka wada siman balse maankoodu kala duwan ragow idinkana dumarkiina ixtiraam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام أصحابتك وحرين جنالك سمان قالي سو دوادا ومسكين تيرا مر لباد iyo فيديو cusub. maanta waxaan ka hadli doonaa maanta hees uu soo qaaday CK sida uu taqaanay bakiin CK uu soo qaaday gabartii loogu geystay xadgudubka Muqdisho maalintii dhaweed. ilaahay u naxariisto meeshan uga taxsiina inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay u naxariisto waalidkii dhalana samir iimaan Allah ka siiyo. marka waxaan isla eegi doonaa hees uu soo qaaday CK iyo dareenkiisa uu ku muujiyay. anina meeshan ka muujiyay dabcan dareenkayga iyo sidaan u arkay sida heestu ay tahay aan isla fiirino asxaabta. wuxuu ku bilaabaa asagoo matalaya calashaan gabarta hamiga ilaheed iyo sida macnaha wax u bari jirtay iyo buug iyo qalin ma sha Allah. walaa wiilkan wiil dareem macnaha dareemad qof walba dhibkii uu haysto uu dareemaa laakiin asaga inta uu qabo kar kale uu meeshaan uu ka soo muujiyay anagana sidoo kale. soo kuma dhixin waa runtiis dabcan gabar oo walaasha oo Soomaaliyeed markii Soomaaliyada laga soo gudbo kula diina oo muslimna aan ta qabatay oo ku u geysteen ku soo wadarad u geysteen idinkoo niman dhan oo boqolooyaal ah kale boqolooyaal kuwaas ma dhihi karee konton xitaa ma dhihi kara 25 aan qiyaas karaa kuwaas aan taa ku soo wadarad u geysteen haddana dabaq laga soo tuuro wallahi waa wax laga xumaado waa wax uur ku taala wax nolosha ay dambe inta noolna xitaa aan ilaawi doonin. marka asasi fiirna bal heesta iyo sida uu u qaado way u wacana dabaq uga tuurey nafteeda dhan u dhaafinay waa runtiis adaa wactay dabcan ma dareemi kartaa qof dhan oo xilliga la dhaxeeyo Soomaalida waxay dhahan horta meel xuna wax ka fiiriyeen waxa laga yaab dad badan dhahay gabar ay maxay ka doonta iyada maxay uga tagtay dabcan gabar iyo wiil meeshan baan leeyahay hadii qofka xiriirka la dhaxeeyo waa laga yaabaa inaad u tagtid oo baalka leeyahay aad istiraahdo qofkan maadaama waqti badan isqaanin xumaan aad ka fiilinay marka u tagtana uu kugu noqdo waraabe waa sidoo heesta ku sheegay way u tuuray dabaq uga tuuray nafteeda dhan u dhaafinay waa runtiis. nolol bay leeyahay ubad korsay leeyahay hooyo noqoleed waxaas inay ku fikirayso macnaha sidii markaas ay ku fikiraysay ama horumarkeeda ay uga shaqeynaysay laakiin maxay kugu taala idinka sabab noqotay idinkan taafseen walaa wax laga xumaado wax laga qoomeeyo nolosha dhan.
dumarow raggu muuqu ka wada siman balse maankoodu kala duwan ragow idinkana dumarkiina ixtiraam waa maqasheen oo maleena hees ma dhihi karaan waxa dhihi karaa dardaaran iyo علشان dadka wax magaratada in wax loogu sheego ay wax ku fahmaan waa haday wax fahmayaan boqol marna waxaan iyo wax lamid waa loo sheego amaleynaa dika wala hees waxa uu soo qaado qeyral anigu ay qeyrasiistan dareenkayga dhan bedeshay marka waxa dhig hees ma dhigi karna dardaaran dhigi karna dumarow raggu muuqu ka wada siman balse maankoodu kala duwan ragow idinkana dumarkiina ixtiraam waruntiis dad waxa jira kor marka ka aragta aslada qofkan waa qof qaali ama qof binaadina wax qiiqana ma waa nin raga laakiin marka hoos si eegtay ama aan si bartay noloshiis dambe xayawaan xitaa lagu tilmaami karin macnaha rag oo dhan haystaan waxa haystaa dadka wax magaratada oo nolosha ficilada noocaas oo kale ku dhaqaaqay ama waxyaabo aan diinta ka baxsan oo xitaa diin iska day binaadinimo xitaa ku jirin hadda midan waxaan oo gabarta lagu la kacay lama dhigi karo wax macnaha diini iska day xitaa binaadinimada ay ka baxsan tahay xayawaaneenta xitaa qaran ku dhaqmaan marka waxaan dardarankay ugu dambeeyay hadalkay ugu dambeeyay ku soo gabagabay waxaan leeyahay rag Soomaaliyeed rag oo dhan rag mu wada sino kuwa waxa ku jira CKO kala ah ma sha Allah iyo kuwa laga hadlayo kuwa lamid ah iyo wax ka sii liita marka kuwaas Ilaahay naga qabto dalka iyo dadka iyo diinta midna ma anfacayaan uma baahnay Ilaahay naga qabto marka fiidiyoogayga taas ku eegay insha Allah diin waxaan rajaynaynaa dareenkaaga iyo sida fikradaada aad commentiga noogu soo qori doonto waxaan ilaahay fiidiyo ku xigta ku kulmi doono sidaas iyo dumarow raggu muuqu ka wada siman balse maankoodu kala duwan ragow idinkana dumarkiina ixtiraam